waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno shiinaha oo sii wada hoosu dhigista faafitaanka cudurka corona. talyaaniga oo 24 saacadood gudahood ay ku dhinteen dad 600 oo qof ka badan. maraykanka oo isna labadii maalmood ee u dambeeyay ay labalaabatay tirada dadka oo maalin walba ku dhacay cudurkaasi. mid ka mid ah ilihii dakhligu uga soo xiran jiray dowladda Japan oo u joogsaday sababo la xiriira saameynta xun ee corona ku yeeshay. iyo ciyaarihii Olombikada adduunka ee Tokyo martigelin lahayd sanadkan oo ku dhow in dib loo dhigo. qodobo kale ayaa raaci doona. ku soo dhowaada barnaamijka. waddanka Shiinaha ayaa sii wada inuu yareeyo khatarta cudurka corona, waxaana warbixinihii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya hay'adaha caafimaadka ee dalka Shiinuhu ay cadeeyeen in 70,000 oo qof oo ka mid ahaa bukaankii cudurkaasi ku dhacay ee cisbitaalada la keenay ay ka bogsadeen oo ka caafimaadeen kana baxeen cisbitaaladii lagu hayay. waana tiro qiyaas ahaan u dhiganta 90% dadkii Shiinaha u dhashay ee uu cudurkaasi ku dhacay, iyadoo baaqiga soo haray oo weli cudurkaasi hayaana ay gaarayaan 6,000 oo qof oo 2,000 oo ka mid ah ay xaaladoodu culus tahay, sida ay jimcihii sheegeen hay'adda u sarreysa caafimaadka guud ee dalka Shiinuhu. waana xilli ay maalintii labaad ee xidhiidha aanay jirin dad cusub oo fayraskaasi ku dhacay gudaha dalka Shiinaha, laakiin ay warwar dheeraada ka qabaan dadka dibadda kaga imanaya waddankaasi oo ay ka baqayaan inay dib u soo celiyaan faafitaankii cudurkaasi. waxayna dowladda Shiinuhu amartay in dhammaan dalka dibadda ka soo gelaya waddanka la mariyo marxaladii baxnaaninta caafimaad ee 2 toddobaad qaadanaysay ka hor inta aan loo ogolaan inay gudaha u sii galaan waddanka. waana xilli ay dowladda Shiinuhu mamnuucday in la ugaarsado xayawaan dibadeedka amaba la iibsado ama la sii iibin karo, marka laga reebo arrimo kooban oo dhinacyada baaritaanada cilmi la xidhiidha, kuwaasoo iyana mari doona marxalad adag oo lagu hubinayo caafimaadkooda. iyadoo haddaba ay Shiinuhu sidaa u xakameeyeen fayraskaasi oo natiijooyin wacan ka gaadheen, ayaa dhanka dalka Maraykanka iyo qaaradda Yurub waxa uu faafitaanka iyo dhimashada cudurkaasi maraya halkiisii ugu darnay. tusaale ahaan dalka Maraykanka waxaa 24 saacadood ee u dambeeyay labalaabatay tiradii dadkii oo maalin walba ku dhacay cudurkaasi, waxaana bilaabatay inuu gobol waliba haatan isku tashado oo xal u raadiyo dhibaatadan caafimaad iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa fiditaanka cudurkaasi dilaaga. tusaale ahaan gobolka California oo ah gobolka ay dadka ugu badan kaga nool yihiin waddanka Maraykanka ayaa dadweynaha ku dhaqan waxa ay qaateen go'aamadii madaxda gobolkaasi ee amraysay inay dadweynuhu ku sugnaadaan guryahooda. governorka ama barasaabka gobolkaasi oo telefishinka fariimo u mariyay dadweynaha waxa uu ka digay in haddii aan la fulin qorshaha xayiraadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha oo aan lagu sugnaanin guryaha ay dhici karto in 56% dadweynaha gobolkaasi ay halis u noqdaan inuu haleelo cudurkaasi muddo 4 toddobaad ilaa 8 toddobaad gudahooda. barasaabka gobolka California Mr. Gavin waxa uu ku wargeliyay dadweynaha gobolkaasi oo ilaa 40 milyan gaaraya in lagu nagaado guryaha, isagoo intaa ku daray inuu ku kalsoon yahay in dadweynaha California ay aqbalayaan awaamirta oo ay qabanayaan wax kasta oo lama huraana si ay uga gudbaan xaaladdan taagan, sidii uu yidhi ay toddobaadadii horeba sameeyeen ee ay u ilaaliyeen naftooda, ta qoysaskooda iyo ta bulshada caamka aba. A state as large as ours, a nation state, is many parts, but at the end of the day, we're one body. There's a mutuality and there's a recognition of our interdependence that requires of this moment that we direct a statewide order for people to stay at home. That directive goes into force and effect this evening, and we are confident that the people of the state of California will abide by it. They'll do the right thing. They'll meet this moment. They'll step up, as they have over the course of the last number of weeks, to protect themselves, to protect their families, and to protect the broader community in this great state in the world that we reside in. gobollo kale oo dalka Maraykanka ayaa iyana qaaday tallaabooyin lagu xayirayo dhaqdhaqaaqa dadweynaha si looga fogaado
inay dadweynuhu isu gudbiyaan fayraskaasi laakiin dhammaan saadaalaha la bixinaya waxay tilmaamayaan in toddobaadada soo socda ay noqonayaan kuwii ugu xumaa ee lala kulmo faafitaanka ugu badnaa ee cudurkaasi ee gudaha dalka Maraykanka iyadoo haatan la dhaqan gelinayo dalabkii loo jeediyey militariga Maraykanku inay soo galaan dagaalka lagula jiro cudurka dilaaga ee corona oo ay dhisaan cisbitaalada lagama maarmaanka u ah dadka bukaanka si maalmaha soo socda loo jiifiyo tirada maalinba xigta si laba. Shipmates, it's the 19th of March 2020. A lot has changed in the past week, and the impacts of the coronavirus are changing daily life for all of us. Our focus right now is threefold. We must protect our people, and we must maintain mission readiness, and finally, we have to support the whole of government effort. dhanka qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Talyaaniga oo tirada dadka u dhimatay cudurkaasi ay ka badan tahay tirada dadkii ku dhintay Shiinaha oo ay haatan tirada Talyaaniga kor u dhaaftay 4,000 oo qof oo 630 ka mid ay dhinteen 24 saacadood ee u dambeeyay ayaa Jimcihii waxa ay madaxda dalkaasi sheegeen in la sii kordhin doono xilligii bandooga dalka ka jira loo qabtay lagana yaabo in marxaladda bandooga lagu sii jiro tan iyo bartamaha bisha Abriil. Ra'iisul Wasaare Giuseppe Conte ayaa waxa uu ku celiyay dalabkii uu taageerada kaga doonayay ururka midowga Yurub oo uu dalkiisuna xubin ka yahay. wadamada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyana ku tala jiray inay sii qaadaan tallaabooyin kale oo adag oo hor leh oo lagu yareynayo dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyadoo loo raacayo xeerar iyo shuruuc ay wadamadoodu leeyihiin. dalalka Belgium iyo Spain waxaa kor u sii kacday tirada dadka waasiibaya cudurkaasi. wadamada kale ee kor uga sii kacay faafitaanka cudurkaasi waxaa ka mid ah Malaysia iyo Indonesia. labada wadan oo iyaguna mamnuucay isu imaatinka dadweynaha ee goobaha caamka sida masaajidada waaweyn oo kale iyadoo wadnaha farta lagaga hayo inuu fayraskaasi u sii tallaabo oo gudaha u sii galo qaaradaha Afrika iyo Latin America. dalka Japan waxaa saameynta cudurka corona dartii istaagtay hawshii dalxiiska oo qayb weyn ka ahayd dhaqaalaha wadankaasi. shirkadda diyaaradaha ee Japan ayaa joojisay 550 duulimaad oo dalka gudihiisa ahaa iyo duulimaado kale oo ay ku tagi lahayd wadamada ka tirsan qaaradda Aasiya. taasina waxay keentay inay hoos u dhacaan tirada dadka maalin walba dalxiiska u tagaya dalka Japan inta lagu jiro xilliyadan oo kale ee bilaha March iyo Abriil oo ah waqtiga ay dalxiisayaasha ugu badan tagaan wadanka Japan. iyadoo qiyaasaha hoos u dhaca muujinaya ay cadeeyeen in xilligan ay maalin walba dalka Japan galaan dad lagu qiyaasay 35,000 oo qof halka ay sanadkii hore xilligan oo kale maalin walba dalka dalxiisayaal u tagi jireen 8,000 oo qof. iyadoo isugeyn tirada dalxiisayaasha ee sanadkii hore booqday magaalada Tokyo oo kaliya ay gaadhayeen 8 milyan oo ruux. laakiin sanadkan hoos u dhaca ballaaran ka yimid tirada dalxiisayaasha kadib markii ay xukuumadda Japan ka joojisay fiishayaashii dalku galka ahaa dalxiisayaashii ka iman lahaa wadamada Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo Talyaaniga. waana xilli ay u dhowdahay in dib loo dhigo tartankii ciyaaraha Olombikada adduunka ee sanadkan ay martigelin lahayd dowladda Japan lana saadaaliyay in martigelinta tartankaasi ay wadanka Japan ka soo geli lahayd ilaa 3 bilyan oo dollar oo Maraykanka. dalka Tunis oo maalintii Khamiistii xayiraad la saaray dhaqdhaqaaqa dadweyne ee magaalooyinka dalkaasi ayaa Jimcihii waxaa la joojiyay in ay magaalada kale u gudubto haddii aanay jirin baa la yidhi arrin lagama maarmaan oo suuragala. madaxweynaha Tunis Qays Saciid ayaa Jimcihii waxa uu ku dhawaaqay go'aan ay gaadheen golaha amniga qaranka ee wadankiisa. منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية. بطبيعة الحال قد تقتضي الظروف أن يتنقل شخص من مدينة إلى أخرى لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون السبب مشروعا. لتطمئن أيضا أن الدولة بكل أجهزتها ستؤمن المرافق الحياتية الضرورية من أمن وصحة وغذاء.